أبي العباس سهل بن سعد ورينايو ابن ماجه وسوء أروريي طبراني غير كوضبا سهل حوليه النبي أيام ويديين دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس النبي الله وحان كويدي عمل بان كويدين يا عمل هدي أن سميه إلهي وإجعلانا يو دتكنا إجعلانا يا عمل هدي أن سميه إلهي وإجعلانا يو دتكنا إجعلانا يا نبي حكيري ازهد في الدنيا يحبك الله الدنيا ذاك الزاهد دتك وكجعلاني وازهد فيما عند الناس دتك وحا أكتوضا هذا أما قعمه ذا كجرو كزاهد يحبك الناس ويكجعلان دونا حديثك هو حديث عظيم أدوين سيبة نلوش قفك مسلم كأه عمل oo hadii aan sameeyo ilaahayna ay jeclaanayo dadkuna ay jeclaanayaan qofka bini aadanka ah waxa uu jecel yahay in warkiisa uu noqdo war khayr ah oo dadku khayr ay ka sheegaan qofku wuxuu jecel yahay dadku inay amaanaan qofku wuxuu jecel yahay bulshada uu ka mid yahay inuu ka dhax noqdo bulsho uu ku leeyahay ixtiraam iyo mudnaan iyo wanaag ku dhaxleeyahay dadku inay war hebel waa nin fiican waa nin wanaagsan waa nin khayr badan ta qalbigeena ku jirta qof kasto bini aadan wajil laakiin qofka mu'minka oo muslimka oo caaqilka ah asagu taa mid kale ka sii jecel yahay oo ah in Allah subhanahu wa ta'ala uu jeclaado waxa uu sameeynaayo wuxuu u sameeynayaa إن الله سبحانه وتعالى محبتي سأوهله هذا بحديث كان هو حديث قيم النبي يقول لي ازهد في الدنيا ذا كزاهد الدنيا ذا اسكغتك إلهي واكو جعلان اسكغتك الدنيا ذا محالة غوضة تصبح إيجا انت أنقاته أو كتاب كيغانا أنقاته مسايد كجيس كمد أنفريس ميا لغوضة الدنيا بقى نسكو مشغولين أو وردي أن هيو عبادة أن كد ذاله الدون كان يحال كيسان اسكغتك ميا لغوضة وحبا أن كدرسن مايا زهدي حقيقي كاسمع زهدي حقيقي وحوي إذا دي لدو يروي وقفك إنو سنباريسان ونس أوران ورأدو ونولانيسا انتا يا انتا ومركز تبا أغادو ورأدون كان ولا قتغايا لا تغرنكم الحياة الدنيا زهد دي وحوي شيخ الإسلام ابن تيمية وكو تعريف بضن بوليه وإن كتبت ما لا ينفع في الآخرة وحا أنكو أنفعين آخرة وحانكو أنفعين آخرة إن كتبته تام حال غوضا وحكستوكو أنفعايو آخرة inaad ku dadaasho wax kasto aakhirada dhibayana inaad ka fogaato zuhdiga waxaan rabnaa inaan fahmo maxaa laga wada adduunyada in laga dheeraado bal dib aan ugu noqono dadkii waxa weeye dhuuxay nabiga salawaatu rabbi wa salaamu alayhi xadiiskiisa أبو بكر يا عمر يا عبد الرحمن بن عوف يا عثمان بن عفان يا خالد بن الوليد يا سعد بن أبي وقاص يا ضمان أبو هريرة يا غير كذب الصحابة أها محي أفهمين زهدي وحي أفهمين الدون كأنه قعنت أوجره وسن قلبي أوجرين إن سن كمرجون على ما فاتهم من الدنيا وحيابها طافي الدون كأه لذلك أيغو زهاد بوهدنا وحكش قينا يا عمر بن الخطاب الدولة إسلامك وزارة الدفاع سمينا يا وزارة حسمينا مالية مالك إن لو قيب الدول إسلامك هو قامياش الجوجو وولايات كقبلات الجوجو إن يسوء أروريان مالك وقصة دعو سنترال جوفمنت قصة دعو سياسة إن لا إيغو
cadowga waxyaabaha uu samaynayo tarbiyada lagu dadaalo tacliinta lagu dadaalo aqoonta hor loo qaado caafimaadka dadka laga shaqeeyo social protection la sameeyo iyo welfare waxa loo yaqaano dadka ceerta in la siiyo iyo hooyooyinka ilmaha dhalayo yar watii aan hore u sheegnay Umar ibn al-Khattab maalmaha kamida soo soconayo dad soo qaxay meelaha kale ka soo qaxay Madiina yimid cunug yar baa ooynayo cunuga muxuu ooynayaa buu yiri kasay naaska hooyiska goynaysa maxaa dhacay Umar wuxuu u ballan qaaday cunug kasto oo naaska ka go'o inta uu ka weynaanayo biilkiisa in dawladda islaamka ay bixiso zuhdiga ma aha in kaliya lagu jiro masaajid adduunka kale oo socdo laga haro Uthman ibn Affan ceel dhan buu sadaqaynaya Abdurrahman ibn Auf suuqa dadka waaga horaya 10 mubashiriin waayah wadaad waaye masaajidku jooga kan kalena waa nin caadi oo shaqeysto islaamka kama jirto meel kasta aad joogto waa inaad ka noqotaa qof waxa weeye muuqanayo oo hadana dadkana wax u tarayo nafcu الناس dadka in la anfaco nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay ahabbu الناس ila Allah ilaahi dadka ugu jecel yahay anfa'uhum lin-nas aw lil-khalq wa dadka ugu nafci badan xagga caawinta dadka sida daraadeed zuhdiga maxaa weeye inaan ka tagno adduunyada iyo waxa naga reebaya aakhiradeena laakiin adduunyada istikhlaafka ilaahay baa nasiyay inaanu adduunyada amirno oo aan ka shaqeyno laakiin in qalbigaada aysan ku jirin ee gacantaada ku jirto taaya waxa keenayo in ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku jeclaado in waxyaabaha qaar ilaahay dartiisa uga tagto qaybta labaad waqtiga waa yaryahay wazhad fima 'inda an-nas yuhibbuka an-nas dadka marabta inay ku jeclaadaan waxa gacantooda ay ku hayaan iskaga tag maalkooda ha weydiisan xeelkooda ay qaybsanayaan oo isku dagaalayaan iska daa wixii khayr ama maslaxad ku jirta mooyaan marka zuhdiga dadka dadka inay ku jeclaadaan waxa gacantooda ku jiro oo maal iska ilaali ninba magaalada Basra soo galay markaas wuxuu yiri yaa ugu karaamo badan magaaladan yaa lagu qadar badan yahay markaas leeyahay al-Hasan al-Basri kasuul muxuu ku manaysta arinka wuxuu dadka cilmigu baraa diintu gaarsiiya gacmahooda waxa ku jirana waa iska ilaaliyay wadaadku waxa loo arooriyo wadaadka guriga loo dhiso wadaadka imaamku waxa loo sameeyo zamanka salafka kuma jirin dadkii hore saxaabada wuxuu ahaa in dhaxda uga jira marka waxyaabaha laga helayo waxa weeye dadka hadda rabto inay ku jeclaadaan waa inaad ka tagtaa waxa gacmahooda ku jira xoolahooda li'anno dadku xooluhu jecel yihiin xoolaha dadku way jecel yihiin haddii xoolahooda kula qabsato oo tirado keen iyo waxaan samay waa ku nacayaan haddaad tirado waxaan keen waxaan samay waxaan igu caawi laba jeer ninka qofka bini aadanka markaad wax weydiisato mar saddexaad wajigu ku bedelayaa waa tabiiciyan weey oo wuxuu yiri ninkii gabiyay bunayya aadamu yaghdabu in su'il bini aadanka haddii wax la weydiiyo waa caroonaya wallahu yaghdabu in lam yus'al ilaahayna waa ku caroonaya haddii aadan wax weydiinin athar basar iyo xadiis man lam yas'al illah yaghdab alayhi qofki ilaahay wax aan wareysan ilaahay waa u caroonaya marka ducada iyo baryada xagga rabbi weeye xagga dadka ma aha ida sa'alta fas'al illah hada wax weydiisanaysa ilaahay weydiiso wa ida ista'anta fasta'in billah hadii aad kaalmo weydiisanaysa ilaahay subhanahu wa ta'ala kaliya weydiiso dadkana haday kulligood ee kulmaan waxba kuma anfici karaan haday kulligood kulmaan in dib ku gaarsiiyana dib ku gaarsiin kari maayaan sida daraadeed
dadka wax gacantooda ku jira iska daa dadka inay ku jeclaadaanna waxaa ka horayso in alle uu ku jeclaado xadiiska Abu Hurayra uu wariyay nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri ilaahi subhanahu wa ta'ala naada inna allaha idha ahabba 'abdan ilaahi haduu jeclaado adoon naada jibril u yeeraa kasoo yiri inni uhibbu fulan fa ahbibhu warhabil ban jeclahay ee jeclow fayunadi fi ahli as-samaa ahlu samaa oo dhan buu yeeraa waxa uu dhawaaqa jibril markaas wuxuu yiraahdaa ilaahi wuxuu jecel yahay hebel jeclaada markaas jeclaadaan fayuudac lahu qabuul fi dunya dadka marka aqbalo oo jeclaada fi dunya laakiin jacaylka waa jacaylka dadka muslimiinta iyo muuminiinta qofku xusbihi kara dad badan baan naqana oo fisqi ku jiro oo xumaan ku jiro dadkuna markay arkaan ay sudilayaan inay jeclaadaan jacaylka laga ma hadlayo munaafiqiinta iyo kuwa wax magaratada ah iyo gaalada jacaylka is jecel yihiin xaqiiqiga ma aha waxay u jecel yihiin inta qofka uu waxa sameeynaayo ninka heesayo waxa la jecel yahay intuu heesayo hadduu suuqa ka baxo oo maalinta iska marayo waxa leeyahay ninka heesiis bariyahan lama dhigaysto waa iska baabay laakiin waxa arkaysa waxa leeyahay hebel fanaan buu ahaan jiro aad loo jecel yahay bariyahan aaway meelaha iska jira waa duqoob ninkii bariyahan ma hayso moot qof rabo ma laha jacayl xaqiiqi ma aha moot ninku bad ciyaara aad loo jecel yahay dadkii waa isu dilayaan dhalinyarada waxay u jaranayaan sidii asaga u jarto 5 sano kadib markuu suuqa ka baxo meel uu maran la garan maayo wax sheegay ma laha li'annahu jacayl xaqiiqi ma aha marka waxa laga hadlayaa xadiiska waa jacaylka xaqiiqiga oo ilaahay ta anbiyada siiyay wa alqaytu alayka mahabbatan minni ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu yeeray war muuso aniga waxaan ku siiyay oo xaqada soo dhigay mahabbatan jacayl xaqiiga ka ahaaday جعلك الله سبحانه وتعالى مكين إن فرعون وجعل موسى لذلك مؤمنين تكليا جعل فرعون عذبك وجعل لي لسان صدق في الآخرين بويري نبي إبراهيم إلهه ذكري جيجا إيو أنيجا إن يدتكو إيشيغان عرب كولر عرب وناكسن كدي أو خير أنيجا إن إيشيغان أيو كبر يا الله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه السلام اللي نواسيي إلى يهودي نصارى iyo dhamaan ay sheegtaan Ibrahim anagu naga ah waxaan ku soo gabagabaynaynaa nolosha adduunyada waxay ku macaanta in waxa aad sameynayso Ilaahay dadka u sameeyso Ilaahay jaceelkiisana aad raadiso dadka jaceelkooda waad heli Ilaahay hadaa raali geliso dadkuna way ku jeclaan laakiin hadaa tiraado dadku raali gelin waxa ay rabaan baan siin ayaguna waa weyn إلهي جعل في سنة ووينسا تتكنا جعل كذا وحلو قصبضان إن إسكديسو وحق عنتو ذا كجرو وبالله